بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalada muslimiinta ah oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenan oo aynu insha allahu tacaala diiradda ku saari doono waa kuma shaydaanka ama ninka ama tuugga u soo tafaxaytay inuu salaadaada uu kaa xado ee ku waswaasiyo salaada dhexdiisa. waa kuma ninkan ka dambeeya in aad ku sahwido salaada dhexdeeda ama aad ku dhex shakido ama aad salaada dhexdeeda ku dhex hamaansato ama salaada dhexdeeda aad hareeraha bidix midig kor hoos aad u fiirfiiriso ama salaada dhexdeeda aad ku dhex ruxanto ood ku dhex gariirto ama salaada dhexdeeda kugu soo tuuray inay weysadii kaa jabtay. waa kuma ninkaas? ninkaa waa nin shaydaana weeya, magaciisana waxaa la dhahdaa khanzab. wuxuu ka waswaasiyaa dadka salaada, waana tuug aad u weyn oo xada salaada iyo khayraadka dadka muslimiinta ah. intaynaan horta soo bandhigin ninka khanzab loo yaqaano shaydaanka ah, waxaynu ka horraysiinaynaa su-aal ah: shaydaanku marka hore ma soo geli karaa masaajidka? waana almasaajida lilah, ila masaajidada ilaahay baa iska leh. shaydaankani ma soo geli karaa masaajida lagu tukanayo ee lagu oogayo cibaadooyinka ilaahay? jawaabtu waxa weeyaan wuu soo geli karaa. subxaan allah. waxaana jirta qiso cajiib oo ama dariif ah oo lagu qosli karayo. ninbaa waxaa dhacday salaadii buu galay. markii uu salaadii uu galay baa waxa weeyaan imaamkii salaada tujinayay ayaa wuxuu dha istaw, war safafka maaragtay ha la simo, cagaha iyo garbaha isku dhejiya, ee safka hore soo buuxiya, safka maaragtay daloolaha la buuxiyo. sidaasuu imaamkii u dhahay. marka nin ku xigay ayaa markaa waxa weyaan cagtiisuu soo durkiyey. subxaan allah. wuxuu rabaa in labada cagood uu isku dhejiyo markaas yani wax daloola aanay maaragtay halkaa aanu u imanin. kadibna ninkaan ka warrabaynay markuu arkay cagtan kusoo durkaysa wuu ka durkaa ilaa isagu labadiisii lugood isku dhejiyey. subxaan allah. salaada dhexdeeda intii uu ku jiro dhan caguhu saa isugu haya, wuu isku dhejinaya. ninkan kale cagihiisu ka orday. markuu salaadii ka baxayba wuxuu ku yidhi, war haadhe, maxaad cagahaaga igala soo doonaysaa? markaasaa ninkiiba wuxuu ku yidhi, waxaa la diidayaa in labadeenna maaragtay markaynu tukanayno in dalool inoo dhexeeyo oo daloolkana shaydaankaa soo gelaya. wuxuu dha war ma nin waalan baad? kasuu hi ma waalni oo shaydaanku muxuu masaajidka ka soo doonayaa buu yidhi. wuxuu dhahay ninkii, war waa xadiid weeyaan, waa xadiis saxiixoo nabigeenna ka sugan oo shaydaanku masaajidku soo galaa, meelaha khalalka ah ee daloolo oo dhanna uu soo dhex galaa, waswaaskana halkaasuu kaa gelinaya. wuxuu dha war nin wax garanaya ma tiidayna mari shiikha aanu weydiinay. sheikh cumar bay markaa u yimaadeen. wuxuu ku hi, sheikh cumarow, ma arrintaasaa jirto oo shaydaan baana kala dhex gelaya? shiikhi baa wuxuu hi, ha, waa suurtagal, leanna waxa wey haddii dalool meesha u yimaado shaydaankaa idinkala dhex gelaya. ninkii intuu cadhoodayba wuxuu ku leeyahy, war ha shiikh, waxaan kugu haystay inaad nin caalima tahay oo aqoon-yahan oo maskaxda ku kala furan taho kutubada akhriyay, maantun baan ogaaday inaad tahay jaahil aada u weyn. shiikhii baa yaabay, war maxaa dhacay? wuxuu dhahay ninkii, oo hadduu soo galay masaajidka maxaad ugu diidaysaan ha tukada salaade? laa xawla walaa quwata illa billah. ninkaasi markaa wuxuu rajo ka qabay shaydaanka soo gala markaa masaajidka inuu salaada uu tukanaya buu maaragtay uu rajo ka qabay. ilaahay rajada inama tiro, ilaahu rajada hana beelisiin. waxa weeyaan run ahaantii shaydaanku masaajidka wuu galaa. axaadiis badan baana u daliilay inuu soo galayo uuna ku waswaasinayo. waxaa ka mid a xadiidkii abu daawuud iyo axmed ay soo saareen, sheikh alalbanina raximahullah uu saxiixiyey. xadiiskii anas ibnu malik radi allahu canhu wuxuu dhahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, rassuu sufuufakum waqaaribuu baynaha. safafkiina maaragtay isu dhoweeya oo safkii maaragtay ha la soo buuxiyo meeshii daloosha, safafkuna ha isu dhowaadaan, isula dhowaada buu dhahay. waxaaduu bilacnaaq, markaa waxa weeyaan garbihiinana isu dhoweeya oo maaragtay ha isku dhagaan. fawalladii nafsii biyadihi inii la ara shayطaana yadkhulu min khalali sayfi. ilaah baan ku dhaartay buu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxaan arkaa shaydaankii oo soo gelaya khalala saf, meelaha safka ka daloola samaydaan arkine bannaan, meelahaasuu soo gelayaa. kaannaha alxadafu, waxaad moodaa shaydaankaas alxadaf. xadaf waxa weeyaan idaha, mataqaana
idaha ilmaha yare uu dhaleen naysh la dhaho nayl isagoo la moodo naylaha yaryar maaragtay subxaan allah isagoo la moodo soo dhex gelayaa cagaha labada cagood dhexdooda uu soo gelaya subxaan allah oo uu shaydaankii halkaa uu ka waswaasinaya walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin shaydaankana magaciisa khanzab baa la dhahdaa waana shaydaankii nabigeena uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixulmuslimka ku yaalay xadiidkii cuthmaan ibn abilcaas radi allahu canhu wuxuu yidhi waan waswaasi jiray buu yihi markaa nebigu uu tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina ashayطaana qad xaala baynii wa bayna salaatii wa qiraa'atii yalbisuhaa calay shaydaankiibaa na kala dhex galay buu yihi aniga iyo salaadaydiiyo iyo qiraa'adii aan akrinayayo talbiisaad yacni wuu ishaki gelinayaa wuu waswaas gelinayaa anigoo salaada dhexdeeda ku jiraan waswaasaya buu yihi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigi ilaahay baa wuxuu yihi markaa daaka shayطaanun kaas waa shaydaan yuqaalu lahu waxaa loogu yeedhaa khanzabun waa khanzabba weeyaan ninka waxaa ka dambeeya waa khanzab oo shaydaana weeyaan faidaa axsastahu haddaad dareento buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fatacawad billaah ilaahay ka magan gal minhu yacni shaydaanka ka magan galo waxaad dhahdaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim watfil calaa yasaarika halaathan 3 jeerna dhinacaaga bidix ku tuf qaala wuxuu dhahay cuthmaan ibn abilcaas fafacaltu daalika sidii nebigu ifaray baan yeelay faadhabahu allahu calaya ilaahayna wuu iga tagsiiyey shaydaankii khanzab iyo waswaasnimadii subxaan allah markaa nabigeena wuxuu noo sheegay shaydaanka khanzabee tuugga weyn ahi markaad salaada gasho inuu ku waswaasinayo markaa markuu ku waswaasiyo wuxuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam adoo salaadaada ku jira inaad shaydaanka iska naarto acuudu billahi min ashaytaan rajiim ayaad dhahaysaa kadibna dhinacaaga bidix ayaad ku tufaysaa 3 jeer saasoo kale waana inay la socotaa maxay candhuuf yari waa inay candhuuf yari ay la socotaa dabcan waxaad dhici karaysa inaad tidhaahdo jamaacan ku jira dad jamaacan la tukanaya dhinacana qof ba iga xiga dhinacana cid kale iga xigta sidee baa xalku noqonaya haddii aad maaragtay dhinaca bidixaana cidi kaa xigin waad ku tufaysaa waana dhaqaaqa salaada la ogol yahay marka waswaasku kugu yimaado waa lagu ogol yahay inaad shaydaanka iska naarto iyo inaad dhinaca bidix intaad u jeesato aad 3 jeer candhuufa tufto waa la ogol yahay taas laa xaraj yacni wax dhiba ma leha haddii cidi ay dhinacaaga bidix ku tukanayso waxaad yeelaysaa candhuufta waxaad ku tufaysaa dad cimaamad sidatid cimaamadaad ku tufaysaa dii kale shaatigaaga ama khamiiskaaga ayaad ku tufaysaa candhuuf yar oo tufid oo ay la socoto marka si uu shaydaankaas aad isaga naartidood u rajiimaysidood maaragtay aad ilaahay uga magan gashid subxaanahu wa tacaala nacam nabigeena calayhi salaatu wasalaam shaydaankaasi waa isku dayey bal ibliis baa nabiga isku dayay inuu salaada dhexdeeda ka waswaasiyo sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkii caaisha ee maaragtay imaam nisaa-i uu kitaabkiisa kusoo saaray waxay leedahay caaisha ilaahay raalliha ka ahaadeen ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa kaana yusallii salaadii buu tukanayay fa ataahu shaydaan baa u yimi marka u fiirso masaajidkii uu soo galay markaa shaydaankii walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin sababtuu usoo gelayana hadhow baana sheegi doonaa insha allah fa ataahu shaydaanu shaydaankii baa soo galay masaajidkii marka fa akhadahu fa saracahu fa khanaqahu nebigii baa intuu qabtay ayuu legday subxaan allah deetana wuu ciiji sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markaasuu wuxu dhahay rasuulki ilaahay xataa wajadtu barda lisaanihi calaa yadi ilaa maaya dhareerkiisa qabowgiisa aan gacantiisa keenay yacni markii uu cunaha lagu dhegay dhareer baa ka yimi afka dhareerkiina wuu qaboobaaye gacantaydan qabowgii ka dareema buu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam walowlaa dacwatu akhi sulaymaan calayhi salaam la asbaxa muwathaqan xataa yaraahu nnaas haddii aanay jirin ducadii walaalkay nebi sulaymaan oo ku ducaystay maxay mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi buu ilaahay buu weydiistay markaa boqortooyiyo hanti aanu cuntamin cid aniga iga dambaysa aanu cuntamin ayuu nebi sulaymaan maaragtay uu ku ducaystay mulkigaana waxaa ka mid ah in loo sakhiray shayaadiinta markaa wuxu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya walaalkii nebi sulaymaan calayhi salaam haddaanay ducadaasi jiri lahayn waxaan ku xidhi lahaa derbiga masaajidka ilaa iyo dadku ay ka arkaan shaydaankaasina dabcan wuxuu ahaa ibliis almalcuun sida xadiiska kale ee isaguna maaragtay saxiixa uu tilmaamay waana xadiiska imaam muslim isaguna saxiixiisa uu kusoo saaray wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam abidarda saxaabiga la dhahda baa warinaye wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay baa istaagay yacni wuxuu isu taagay salaadii marka fasamicnaahu yaquulu waxaanu maqalnay isagoo salaadii ku jiray waxaanu maqalnay nebigii oo dhahaya
acuudu billaahi mink ilaahay baan kaa magan galay isagoo nebigu salaada dhexdiisa sidaa ku dhahaya baan maqalnay uma qaala markaasuu nebigu wuxuu dhahay alcanuka bilacnati illaahi halaatan lacnada ilaahay baan kugu lacnadayaa lacnadii ilaahay uu ku lacnaday baan kugu lacnadayaa wa basada yadahu buu yihi saxaabiga abudardaaba wuxuu yihi nebigu gacantiisuu fidiyey subxaan allah kaanahu yatanaawalu shay-an buu yidhi waxaad moodaa inuu wax qabanayo oo kale gacantii buu fidiyey rasuulku sala allahu alay wasalam falamaa faraqa min asalaati qulna markaa uu nebigu salaadii uu ka baxay ayaan idhi yaa rasuul allah qad samicnaaka taquulu fi salaati shay-an salaada dhexdeeda markaad ku jirta waxaan maqalnay adigoo wax akrinaya lam nasmacka taquulahu qabla dalika oo aanan hadda ka hor maqlin inaad sidaasoo kale maad dhihin hadda ka hor bay dheheen wa ra-aynaa basadta yadaka waan aragnay bay dheheen maxaynaad gacantaadana fidisay oo aad wax qabanaysa qaala wuxuu dhahy nebigii ilaahay ina caduwa allahi ibliis cadowgii ilaahiyo ibliis ahaa jaa'a bishihaabin min naar liyajcalahu fii wajhi wuxuu keenay yacni dhimbiil ama dhuxul dab ah ayuu soo qaaday si uu wejiga iga saaro ama wejigayga uu ugu gubo faqultu markaasaan waxaan ku idhi buu yihi rasuulku acuudu billaahi minka 3 maraat 3 jeer buu dhahay maxay acuudu billaahi minka acuudu billaahi minka acuudu billaahi minka shaydaankiibu iska naaray markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam markaasaan waxaan idhi alcanuka bilacnati illaahi taamma waxaan kugu lacnaday lacnada ilaahay ee dhammayska tiran subxaan allah 3 maraat 3 jeer buu markaa sidaa uu yidhi uma aradtu akhdahu markaa wuxuu yidhi nebigu waxaan doonay inaan qabto ibliis almalcuun ibliiskaa lacnada ilaahay dusha ka saaray inaan qabta baa rabay wallaahi lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan haddaanay jiri lahayn way jirtay iyo ducadii walaalkayno ama walaalkeen nebi sulaymaan calayhi salaam haddaanay jirin way jirtay ducadaasi uu ku ducaystay mulki iyo hanti aan cid kale u cuntamin amaan u qalmin ilaahayo si uu ku ducaystay haddaanay jiri lahayn la asbaxa wuxuu ku waabariisan lahaa ninkaasi maxay mawthiqan isagoo maaragtay la xidhay isagoo maaragtay derbiga masaajidka lagu xidhay yalcabu bihi wildaanu ahli lmadiinati oo ay ku cayaarayaan caruurta magaalada madiina ay ku dul ciyaaraan ama dhagxaan ay ku tuuraan ibliis almalcuun oo halkaa caruurtu ay ka riwaayadaysataba saasaan doonay laakiin maadaama ducadii nebi sulaymaan ay iga horeysay wuxuu nebiga ilaahay uu ixtiraamay sala allahu calayh wasalam oo uu qadariyey ducadii walaalkii nebiyullahi sulaymaan calayhi salaam marka xadiidkaas iyo xadiidkii hore iyo dabcankii kasii horreeyey intuba waxay noo sheegayaan inuu shayaadiintu subxaan allah ay soo gudageli karaan ama ay geli karaan maxay salaada dhexdeeda bal safka meelaha daloole bannaanna ay soo geli karaan ayna ku waswaasin karaan oo sahwi kugu soo tuuri karaan iyo shak iyo balaayo arrimo kale oo aanad u joogin inuu kugu soo tuuray waa maxay sababtu waxa weeyaan waxa ugu qaalisan adduunyada ee ilaahay lagu caabudo waa salaad waa shaygii ugu qaalisanaa weeyaan cibaadadii ugu qaalisanayd waayahay marka wixii ugu qaalisanayd shaydaanku ma raba maxay in 100% subxaan allah iyada oo kuu dhammaystiran oo kaamila in maaragtay lagu qoro ma rabo wuxuu raba iyadoo naaqusa ugu yaraan iyadoo wada janjeedha iyadoo maaragtay hamaansi uu ka buuxo iyadoo daal ka buuxo iyadoo ruuxan iyo gariir uu ka buuxo iyadoo shaki uu ka buuxo in maaragtay la qoro markaa deetana malaaigtu ay dhahaan 30% buu la yimi 20% buu la yimi 80% sahwiyo wuxuu ku maqnaa maxay iyo waxaynaan garanaynin buu ku maqnaa subxaan allah markaa shaydaanku markii hore wuxuu rabay inuu kaa joojiyo run ahaantii salaada inuu kaa joojiyo buu rabay laakiin markaad diiday ood salaadii aad timi oo masaajidkii aad timi wuxuu rabaa maxay ugu yaraan inuu faa'iidaysto inuu naaqusiyo salaadaadii haddii ay u suurto gashan inuu dhammaanteedba sahwiyo salaadii maaragtay uu kaa wada sahwiyo deetana meeshiiba eber lagu qoro subxaan allah taas waa wax weeyaan waa asbaabta maaragtay shaydaanka ku kalifaysa inuu yimaado masaajidkii ama goobtii salaada lagu tukanaya iyo xitaa haddaad markaad keligaa tukanaysid uu imanaya shaydaankii si uu salaadaada u naaqusiyo ilaahay baana subxaana wa tacaala sakhiray oo ilaahay baa ugu talagalay sidan subxaan allah haddii aanay jirin challenge yacni waxyaalo taxadiya waxyaalo ku carinaya haddaanay jirin may macaanaan lahayn diinteenni diin alislaam haddaanay jirin fitan iyo imtixaanaad haddaanay jirin may macaanaan lahayn yacni dhadhan iyo macaan ma yeelanayso tusaalaan idinsiinaya matalan haddaan idhaahno tartan baa la qabanaya koobka ingiriiska kubadda cagta ayaa tartan loo qabanaya premier league deetana
waxaa tartamaya koox weyn oo naadi weyn oo caano la yaqaano tiimkooda u dhamaystiran wax walba ay u dhamaystiranta iyo koox yaroo iska kooxa yaroo masaakiin aba wada ciyaaraya xamaasad iyo maaragtay ma yeelanaysa maxay taageero badan iyo xamaasad badan ma yeelanayso laakiin marka meesha ay yimaadaan challenge uu timaado carin iyo taxaddi uu yimaado kooxa waaweyn oo isu qalmaya ay yimaadaan markaas ayaa waxa badanaya taageeradii waxa badanaya xamaasadii saas oo kale subxaan allah deetana xamaasad badan bay yeelaysaa hadhow tale guusha uu qofku guulaysto waxa u yeelaysaa maxay dhadhan iyo macaan ayay u yeelaysaa walilahi almathal alacla subxaan allah ilaahay baana tusaalaha sare iskale si aawadeed ilaahay wuxuu nagu imtixaamay shayaadiinta si ay salaadeenna iyo cibaadadeennu ay dhadhan u yeelato oo aynu ogaano shaydaankaasi challenge iyo taxadiga iyo carinta uu inagu hayo oo maaragtay aan ka adkaano caduw wallahi ibliis cadowga ilaahay iyo ibliis almalcuun maxaa ka mid ah haddaba asaaliibta iyo maaragtay qaababka uu adeegsado shaydaanka la yidhaahdo khanzab oo ah ninka u qaabilsan waswaasinta salaada muxuu adeegsadaa si uu kugu waswaasiyo salaada muxuu adeegsadaa qaab noocma wuxuu adeegsadaa salaada dhexdeed ku jirta subxaan allah wuxuu kugu dhahayaa neef baa kaa baxday weysadii way kaa jabto neef baa kaa baxday uu ku leeyahy subxaan allah ama wuxuu ku dhahaya warheedhe markaad masaajidka kasoo baxaysay markaad suuliga kasoo baxaysay kaadi baa kaa dareeraysay waxbaa tiftif lahaa subxaan allah la ilaha illa allah deetana qofkii waswaas caawo dhan deetana waa inuu mar musqusha dib ugu noqdaa wuu isdaahirinaya wuu isi soo daahirinaya wuu istijoonaya haddana markuu salaada gale wuxuu ku leeyay waxbaa iga yimi malaam subxaan allah ama dhiig baa iga yimi gabadhii bay dhahaysa ama neef baa iga timi ama waa kan ama kaadi baa timi neefta waxa weeye nabigeena nooga warramay xadiis saxiix albukhaariga iyo muslimka ku yaala sala allahu alayh waalihi wasalam nin baa markaa waxa weye nabiga ayuu ga cawday wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ninkaas yukhayalu ilayhi annahu yajidu shaya fi salaa ninkaa waxaa shaki baa ku imanaya markuu salaada galaba waxaa shaki baa ku imanaya waxaa lagu dhahaya waa shaki waxaa lagu dhahayaa waxbaa kaa yimi neef ayaa kaa timi ayaa lagu yidhi markaa subxaan allah waa waswaaskii shaydaanka u fiirso qaala wuxuu dhahay markaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laa yansarifu ma ka tegayo salaadiisa xataa yasmacu sawtan aw yajidu riixan ilamaayo uu ka maqlayo cod sanqadh yacni iyo aw yajidu riixan ama ur uu ursanayn haddaanad ursanin kow ama sanqadhii aanad maqlin laba waa shakiyo hawadii dee maaragtay uu ka dambeeyey shaydaankii malcuunka la dhahayay khanzab waa sheeke khanzab weeyaan waa la mid marka kaadidaa lamida saxaradaa lamida dhiigga lamida u xalaaliyo wixii maaragtay qofka uu ku waswaasiyo oo kale shakiga ah ayaa lamida yaa ka dambeeya odayga shaydaanka ah loo yaqaano khanzab ayaa ka dambeeya wuxuuna rabaa inuu salaadaada uu kaaga ciyaaro marka uma joojinaysid mar haddaanad sanqadh iyo cod aanad maqlin sidoo kalena ma aad maaragtay ur aanad ursanin uma joojinaysid mar haddaanad hubin waxa weeyaan waad wadanaysaa salaadaadii yaani kaa joojinayn marka arrintaasi waayo waxaa kaloo ka mida qaababka uu shaydaanku uu salaada u xadayo waa tuuggaa weyne khanzab loo yaqaano wuxuu u xadaa subxaan allah wuxuu adeegsadaa qofka dhaqdhaqaaq badan buu ku keenaa salaada si aawadeed culimmada qaar badan waxay dhaheen marku hadduu qofku aada u dhaqdhaqaaqo salaadu way ka burtaaba way ka buraysaa salaadu sida u dhan tahayba markaa dhaqdhaqaaqa faraha badan le waxaa ka mid a salaadii baad iskaga jirtaa cirkaad eegi hareertanaad eegi oo midig baad eegi oo bidix baad eegi salaada maaragtay jeesadkaas saasee faraha badan leh aadkoo badan ama dhaqdhaqaaqa iyo ruuxanka faraha badan leh uu suu joogo surwaalka uu jiidanaya oo haddana halkan uu jiidaya ama macawistuu sare u qaadaya ama halkan koofiyadii madaxuu sidan u xoqayaa indhuhu haddana dhegtii laa ilaaha ila allah sanka haddana laa ila hada huwa alkhanzab khanzab weeyaan hawshiisii wataa hawshiisii ayuu wataa waa khanzab weeyaan subxaan allah nabigeena wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii caaisha oo bukhaari uu soo saaray radia allahu canhu waxa weeye caaisha waxay tidhi waxaan weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam aliltifaata fi salaa dhaqdhaqaaqa qofku ama uu jeesadka uu ku dhex jeesto salaada uu ku dhex jeesto qofku ka waran faqaala wuxu uhi nabigu huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi waa xadmo iyo xantooyo uu xadayo shaydaanku uu ka xadayo maxay addoonka salaadiisi wuu kaa xadayaa subxaan allah kaa naaqusanaya salaadaadii ayuu kaa naaqusanaya marka waa tuuggaa weyn ha u ogolaanin marka inuu salaadaada uu xado maxaa kaloo ka mid a waxyaalahu adeegsada waxaa ka mid a salaadii markuu allahu akbar od saa u gasho mise afku kala qaadaya qofkii waaba hamaansadayba
bal hadda u fiirso waxa masaajidka ku tukanaya mar allaale markuu imaamku allahu akbar takbiirta koowaad mise waxa weeye wada hamaansi afka maaragtay wada hamaansanay subxaanallah hada waxay ka mid tahay hamaansigaasi shaydaan baa ka dambeeyay nabigeena wuxuu noo sheegay xadiiskii saxiixa muslimka ku yaalay wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa tathaawaba axadukum hadduu midkiin ku hamaansado riwaayad kale waxay sheegaysaa fi salaati salaada dhexdeeda markuu ku hamaansado iyo markuu banaanka uu ka yahay salaadaba falyakdim ma stataaca afka ha qabsado marka gacanta afka ha saaro intii uu ka awoodayo fa ina shaytaana yadkhulu shaydaanka gelaye shaydaanka markaad hamaansato haddaan afka gacanta saarin yadkhul wuu ku gelayaa shaydaanku subxaan allah waana meelaha shaydaanku uu dadka ka galo shaydaanku qofku markuu aada u cabsoodo baqdin badan uu dareemo wuu galaa shaydaanku kow waxaa kaloo shaydaanku uu galaa markuu qofku aada u cadhoodo wuu galaa waxaa kaloo shaydaanku uu galaa marka qofku uu hamaansado ayuu yadkhulu shaytaan ayuu afka ka galan subxaan allah saa aawadeed dadka aadka u hadalka badan ama dumarka oo kale maalan shayaadiintu aad bay way u nugul yihiin maxayna shaydaanku galaan subxaan allah weliba khaasatan dumarka soomaalida iminka maalan haddaad halkan suuratul-jin qul uxiya haddaad akhrido oo 80 habloodna ay halkan fadhiyaan 70 ka mida baa waxa weeyaan dhacaya subxaan allah waa laga hadlay midbaa il baa ka hadashay midbaa sixir baa ka hadlay midbaa shaydaan baa ka hadlay midbaa balaayo oo dhan walciyaadu billahi rabbilcaalamiin walciyaadu billahi rabbilcaalamiin dumarkan xagguu shaydaanku ka galay ama cabsi badan iyo baqdin badan baa ku timi deetana wuu galay ama wax weyn afkiiba maaragtay hadalkii faraha badna hadalkii faraha badna hamaansigii wixii oo dhan yadkhulu shaydaankii baa galay ama wax weyn subxaan allah way cadhootay cadho aada u waaliya bay cadhootay khalaas wuu galay shaydaankii saasuu ku galaa markaa shaydaanku dadka walciyaadu billahi rabbilcaalamiin marka salaada dhexdeeda haddii aad aragto hamaansiga afkaaga qabso waayo waa shaydaankii wuxuu raba maxay inuu salaada kaa dhex waswaasiyo waxaa kaloo kamid a waswaasintiisa inuu ku sahwi uu ku geliyo salaadii way ku jirtaa salaadii duhur weeye 4 ragcadood bay ahayd subxaan allah saad u joogtayba waxaad isdhahaysaa isweydiinaysaa war ma 2 baan tukaday mise 4 baan tukaday ma 3 baan tukaday subxaan allah warwareeg markaa waxay dhaheen culimmadeena islaamka ilaa khayr badan ha siiyaan waxaad hubto unbad alyaqiin yaqiinta waxaa la idhaahdo ayaad hubto laa tusaalu bishak wax shakiya laguma suuliyo macnaha waxaad hubto shaki ma kaxaynayo marka salaada intii aad hubtood mar walba ayaad maaragtay tukanaysa maalan shaki baa kugu yimi 3 baa tugatay mise 4 baa tugatay imisaan hubaa 3 baan hubaa 3daasa tukanaysaa tii kale ka dambaysana waxa weeye waad ka daba keenaysaa dabadeedna labadii sujuudeed sujuudu sahwiga ayaad la imanaysaa marka qaababka kale uu shaydaanku u waswaasiyo qofka ama sahwiga u geliyo waxaa ka mid a qiraa'ada qur-aanka markuu akhrinayo subxaan allah qiraa'ada qur-aanka markuu akhrinayo allahu akbar markii la yidhi markaa wax weeyaan shaydaankii iska naar acuudu billahi min ashaytaan arajiim waa in faatixada la akhriyaa sooma waa rukni de haddaan la akhriyin faatixada salaad ma lihid weeyaan acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi arraxmaani arraxiim maaliki yowmi ddiin la xawla walaa quwata illa billah arraxmaan arraxiimta ku jirta bisinka ku jirta subxaan allah iyo arraxmaan arraxiimta maalik yowmiddiin ku xigta ayuu isku xidhay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin iyo arraxmaan arraxiim uu ka booday wuu sii waday waa waswaaska shaydaanka waad sii waday maaliki yowmiddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraata aladiina ancamta calayhim ihdina siraata aladiina ancamta calayhim waad sii waday aamiin subxaan allah قل هو الله أحد ومن شر غاسق إذا وقب آمين هذا هو الشيطان والشيطان كيف ساكو قليم شيطان كيف ساكو وسواسينيا وقرآن كقراءة دي ساكو قلديم ساكو قيد مركز وسواس كنوع عاصو قراءة وكاقع عيارو سبحان الله نبي قلنا محينو الشيقي والشيطان كيسكنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده أضو صلاة هذا كوتشو الشيطان كيسكنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبدأ نبي نعاقب بدح كتف tufid yaro weliba candhuuf wadata saddex jeer saa ugu tuf markaad 3 jeer saa ugu tufti wuu kaa tegaya anaana tijaabiye subxaan allah waagii hore yani tajribada inaan isla wadaagno waagii hore marka shaydaanka haddii matalan waswaas ugu yimaado ama riyo xun oo kale aan arko shaydaanka afka anoo saas anoo ama iska hurdaay hoostuman ka dhigi jiray mise wax weeye waswaaskii ma tegayo subxaan allah maalintii dambe ayaa ilaahay markii ilaahay wixii waafajiyo waxaan dhahay okay war codka sare oo qaad yani ku dhawaaq adigu ugu yaraan ismaqashi acuudu billahi min ashaytaan arajiim be acuudu billahi min ashaytaan arajiim kadibna hareerta bidix candhuuf ku tuf
ومحد فو وار كتف تيجو وين كتف شيطان كان نعوذ بالله مركي أن كتفي والله مركي بقى كوجود بينس مركي أصلا كوجود بينس لأنه وحويان هذا هوصل للتو ويرجع بنيا شيطان كان يوقع عدو فاتخذوه عدوا عدو يعلي النعب كويه عدونا عدو ينعب كيلو وركون نار شيطان كان أريجان بعد إبيا شيطان كان نار والعياذ بالله رب العالمين هيسكون نار ندو إسكان نار ومركز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده وصدق تر كتف لنا عبيح كتف يضع عنوف ولا تكتف هدي عيد كلا يقولت كنا يستطيع عنوان تلمامني مراد هذا كتف فيسا أما جوا جامع عمامات هذا كتف سيانة تذكر يعني كودي بسنين مركز سبحان الله مركز سيدا يال مركز قام نوعا محنكو علاجية الشيطان كاس طبعا علاجي كوان نبي جاينو شيء مركز الشيطان كيسكن نار صدق تر عنوف تكتف ولي من عود كنا يسمى قشي تاسنا مع التواميد أنا نقص شخصيا أو تجابيي أنا كيف فايدة دي لما صلاة مركز جلسيد وين ويسقطت هذه الشرانة واحد يعرف رسينة ويسقط لكن سنة النبي جنا وحاكم النبي جنا صلاة كستو ويسقطن شري يدو مارتا حتاني ويسدو كجميع هذا نمر والبين تبدن نبي جنا مر والبوس ويسقطن شري مركز ويسد أفراد بدنا القادن يسيد وحي مارتا كساعد يسا إن صلاة الإحدى تكون وسواسين سيدو كلا واحد لقارها وديار جرو إلا مركز صلاة تجسد وين مسكح هذا الجلسان إن ماشي دو سعته نية ده يكون إن صلاة تهاي صلاة دنا أدمر والبهوبس أبتهاي إنه تشوفه شيطان كخنزب الشياطين تووينه ده الرباني كنا قصيانا ما يعشر كقطان مركز ديار جرو كو إيو ويسد هذا عمر والبعض عصبون يسيسم طلبات وحكم إذا علاجه وحكم إذا صلاة ده مركز اللي قدمه وإن تكتها قفك صلاة ده مارت هذه ترى سنوي كتكذا صلاة سنوي كأنت بدن كم يماطو وسواس واي وحويا والله سيقب ستي صلاة دي سنة أهيد أي وحي كدفاعسة كحجابسة إن صلاة ده فرلك أي كود دفاعسة إنه وسواس وكيمات مركا والبا صلاة سنة كهر رئيسي لبا ركعات ده كهر رئيس صلاة ده سنة تكمل والبا سبحان الله وحي كم يتوحيا لها فائدة دله ما رأيتي وسواس كحني waxa kale oo kamida inuu qofku uu ilaawo marka salaada galaysid Allahu akbar wadiga saada gacmiba sare u qaaday soma subhanallah raf'u al-yadayn gacmiba sare u qaad saa marka tii adduunyadii wadiisi soo gootisay marka subhanallah marka a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim Allahu akbar takbirat al-ihram marka saa dhahdo ilaw arrinta adduunyo xasuusnow ilaahi subhanahu wa ta'ala inaad tukanayso subhanallah waxa kale oo kamida maxay waxyaalaha marka subhanallah aad shaytaanka cilaaj waswaaskaas kaga cilaajinayso salaada dhexdeeda waa adoo jamaacada ku tukada marka jamaacada ku tukato iyo markaad kaliga tukanayso shaytaankii kalibu kugu helaya uu kugu helaya subhanallah marka de waxa weeyaan sidoo doono ka yeelaya wuxuu doono uu kugu sameeyo laakiin marka jamaacada ku tukanaysid waxa weeyaan dadka fara badan ayaad la tukanaysaa subhanallah marka jamaacada hadaad ku tukato waswaas kugu yaraanayaan lamana mid noqonayo qofka mufradka ah ma kaliya tukanaya waxa kale oo kamida salaadaha rawaatibta ah salaada rawaatibta waa sunnooyinka raatibada salaadaha rawaatibta ahi waxa ay inoo kabayaan wixii inaga maartay lumay waswaaskaas oo shaytaankaas inaga xaday waxa inoo kabaya marka waxa weeyaan salaadaha sunnooyinka ولذلك بقى ما ننت قيامه مركا waxa ugu horeeyay qofka muuminka laga xisaabinayo waa salaadii marka laga xisaabiyo hadii salaadaadi waajibka ahayd wax ka dhimaan ilaahay wuxuu dhahayaa bal fiiriya inuu adoonkaygu leeyahay sunnooyin haddii marka sunnooyin badan aad leedahay alxamdulillah wixii shayaadiintu ay ka xadeen oo dhan waxa ku awdeeya oo ku dhameystiraya ku takaamulaya maartay kaamilkaaga dhigaya dhameystiran salaadihii sunnada ahaa mar hadii salaadaadu full ay tahay ku dhameystiratana خلاص نجحت واي صلاة قفك كوغوليستا waxa kale oo dhan ku guuleysanaya subhanallah waxa kale oo kamida in istighfart in astaghfirullah marka salaada ka baxday mesela assalamu alaykum wa alaykum assalamu alaykum saa marka dhahdo خلاص maxaa ugu horeeyay waxa ugu horeeyay inuu dhahno waxa weeyaan astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam تبارك يد الجلال والإكرام أستغفر الله بدوكه الرئيس ومن الذنب بد جلس إلى صلاة بد إلهي وتكنيس وحي وقيمة عبادته وقيمة بالنبي ودي وحويا استغفار تنمعنيه دو ما هدم بأدق شيء ووحي كان إن إله يقدر وكابيتان واللغو كبيا استغفار تانا ها إلا ويان ومر والبمارة تيدو عدام حسوسنو
sidoo kale salaada dhexdeeda markaad ku jirto haddaad aragto wax diiqada ama cadho aad aragto ama aad wax yaro dareento khud nafasan camiiqan yani neef qaadasho weyn qaado neef fiican qaado neef fiican markaad qaadato stressna ha isgelinin stress wax weeyaan inuu qofkii maaragtay welwel badan iyo welbahaar gabgabgabgab tol goormay salaadu dhamays waxaa ha gelin nafta markastood aragto maaragtay subxaan allah inaad cadaadis ama cidhiidhi dareemaysid neef qaado neef fiican qaado cid ku jidaysa male yani oxygeentaas way bannaan tahay saa awoodee dhakhaatiirtuna way sheegaan oxygeenta maaragtay freega ah saa markaad u neefsato ha allahu akbar subxaan allah wax badan baa kaa kala degaya oo cadaadis ama cidhiidhiya kaa kala degaya insha allahu tacaala inahaasaan ku joojinayna amaan kusoo koobaynaa waswaaskaas iyo shaydaankaas habaarqabaha ahee khanzab ee uu salaada dhexdeeda inaga waswaasinaya ama sahwigayna gelinaya ilaahay subxaana wa tacaala salaadeena kuwa ku khushuuca allah inaga yeelo kuwa salaadooda ilaashadee salaadooda maaragtay ilaashadana allah inaga yeelo baaraka allahu lakum jazakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu